buugaag kuraasi yaalaan dadna wax ku akhrisanayaan oo kaliya imika laakiin waa laga balaariyay waxa lagu daray qaybo kale oo fara badan sida la sheegay marka library wuxuu leeyahay qaybtii ay taalay buugta iyo maaragtay waxa wax laga akhristo qaybtii lagu doodayay qaybtii lagu soo bandhigayay qayb kale oo maaragtay madadaala intuba way ka kooban tahay marka library waa library casri ah oo la jaan qaadaya library-yada dunida library muxuu faa'iido leeyahay baa iyadoo la isir weydiin kara horta marka koowaad wuxuu kor u qaadayaa sida la sheegay garaadka iyo wacyiga ummadda marka labaad wuxuu qayb ka noqonayaa isdhexgalka daa'irta iyo dhalinyarta oo haddii loo sameeyo meel ay iyagu wax ku akhristaan oo isku arkaan waxa fududaanaysa inay isdhexgalaan waxa kaloo ku jirta faa'iido dhaqaale dad badan waxay ugu guuraan gobolka oo Hargeysa ugu guuraan qayb ka mid ah waxa weeye ubadka oon helin waxbarashada u baahan oo ay ka mid yihiin library-yadu haddii markaa library-ga aynu maaragtay aynu ku dadaalno waxa hubaala in dad badan ay magaalada joogi doonaan haddaan qolo kale u soo guurin gabilahaan maciishada Hargeysa aad bay qaali u tahay magaaladiina way u dhowdahayeen Hargeysa gabile marka waa inaynu ka fikirno halkaynu imika dad badan ay u guurayaan sidii maaragtay looga faa'iideysan lahaa nolosha jaban ee gabilayna soo jiidato dad badan oo library-gu ka noqonayo mid maaragtay u hormooda gobolada kalena waa sida ma jirto magaalo weyn oo aan ka cabanayn in dadkeedii wax yaqaanay dadkeedii xirfadda lahaa dadkii dhaqaalaha ay caasimadda u soo guurayaan sababtuna ay tahay adeegyo fara badan oo caasimadda laga helayo oo aan gobolada kale ka helayn sida uu sheegay wasiirku waxa ka go'an dawladdu iyadoo madaxweynuhu ugu hogaaminayo siyaasadda in la sameeyo library ay bulshadu leedahay ama maktabada wax ku akhristaan si ay kor u qaadaan library waxa kale uu leeyahay oo inta dheer marka tagto waxa weeye aqoontu maaha kaliya inta lagu jiro aqoonta maaragtay rasmiga ama formalka maaha dugsiga maaha jaamacadda kaliya waa aqoon socota ilaa inta aad ka dhimanayso waxa la yiraahdo continuing learning haddii aanad wax akhrisanayn haddaanad wax faa'iideysanayn aqoontaadu way kala dhiman tahay waxa jira waxa la yiraahdo Morris Low uu soo saaray in la yiraahdo Morris oo ah 8 bilood kastaba aqoonta bini'aadamku soo saaraya way laba laabantaa haddaad wax akhriyi weydo aqoontaadu waxay noqonaysaa obsolete ama wax laga tagay oo dhaco expire waxa kale oo la yiraahdo qofku haddaanu bishii ugu yaraan hal buug aanu akhriyi karin hal buug haddaanu akhriyi karin buugga la sheegayaana waa ilaa 300 page ku dhawaad oo u dhiganta maalintii 10 page haddaanu akhriyi karin waxay ka dhigantahay qofkaasi aqoontiisu waa aqoon maaragtay iyaduna kala dhiman maxaa taa lagu helay in la helo library qof kasta ma iibsan karo buugtu u baahan yahay haddaan wixii la wadaageen oo buugtii aan maaragtay meel loogu soo hagaajin jirin oo dadku aanay maaragtay buugta aanay kala qaadanayn waxa weeye akhriskoodu wuxuu uga baahanayaa inay lacag badan ku bixiyaan si taa looga fogaado in la helo library waxa kale oo dheer oo library-gu uu sahlaya in sida imika laga sameeyo meelo fara badan kale gabilina way ka jirtaa naadiyana way ka jiraan in inta buug la soo akhriyo dadku ay ka doodaan fikradda uu buug uu sido buug marka la leeyahay macnaheedu maaha quraan iyo xadiis soo degay qoraagu wuxuu doonayaa inuu fikrad soo gudbiyo fikradda uu soo gudbiyo inta la soo akhriyo laga doodo la naqdiyo la kristaas gareeyo maxaa faa'iido ku jira maxaan ku jirin kadib maaragtay dadku wacyigooda kor u qaado taasna waa meelaha library-ga lagu maaragtay qaato أنا أقول تيار جامعات waxaan ku jiray 13 sanadood afar heerkii jaamacadeed hore afar dambe oo laba master iyo 3 PhD 12 ka sanadood iyo 2 sano u dhaxaysay intaan ka faa'iiday library-ga ka badnaa intaan maaragtay aqoonta formalka ah maaragtay ka faa'iiday qofka soo arkay library-yada adduunkuna way ku jirtaa cafeteria qolooyin baa maqlayay hodeel iyo waxba la furay library-gu haddaan lahayn meel lagu jimicsado lagu ordo imka lagu daray laftigeeda meel lagu jimicsado lagu daray wax lagu daray cafeteria wax lagu daray meel wax lagu daawado way wax la doonayaa saacadaha qofku joogo wax akhriska inuu dareemo goob ku habboon inuu wax akhriyo meel wax lagu akhrisan karo sidii la inoo sheegayna marka taasi waa talabaad ee kale waxa laga sheegay hadhow maamulka waa la dhisi karaa sidoo sii socon karaya waxa la inooga baahan yahay maamul iyo haday noqoto dhaqan iyo haday noqoto waalid iyo haday noqoto dhalinyar iyo haday noqoto maaragtay bulshada kalaba inaynu ku dadaalno sidee aynu uga faa'iideysan karayna waxaynu uga faa'iideysan karaynaa inaynu yeelano dhaqan wax akhris imika meelaha markaad airport-da marayso markaad raacdo tareenada qof walba buug sitaa inta uu fadhiyo la soo baxay oo akhriya indagana waxa laga yaabaa in intaas oo saacadood aynu ku qaadano maaragtay hadal iyo sheeko iyo dood
marka gabilay dadku dhaqan iyo bulshada waxa la inooga baahan yahay inaynu dhaqanka wax akhriska ay noqdo mid ka mid ah dhaqamada aynu maaragtay aanu leenahay waxaan ku soo gabagabeynayaa sidaa la sheegay kharash ku baxaya waa 3 qaybood qayb golaha deegaanka qaatay waynu aragnay wata maanta baa la bixiyay qaybna dawladda dhexe ku filan qaybna waa bulshada reer Gabley oo intii yarayda marka haday noqoto ganacso haday noqoto qurba joog iyo haday noqoto inteena kala wax la inooga baahan yahay si aanu dib inoogu dhicin inaynu maaragtay contribution-ka aynu keeno gobolada kalena si ay u horgalo maaragtay librarians iyaguna inay qaybtooda ay soo diyaariyaan dawladdu waa idin diyaar wax qabadka xukuumadda waxa kamid ah waa ku jirtay toddobadii rukni ee lahaa maaragtay barnaamij siyaasadeedka xisbigu maaragtay lagu galay codkii 2017 waxa kamid ahaa qaybta bulshada waxbarashada waxa kamid ahaa in xisbiga kulmiye 5 sano soo socda oo dhammaan gobolada ka hirgelin doono rugo wax lagu akhristo marka waxa weeyeen de bulshaduna wax ku darsatay weeyo xukuumadda iyo xisbiguna waa diyaar madaxweynuhuna isaga nagu hogaaminaya siyaasadda gabagabadii waxa weeyeen wax qabad ugu weyn diintuna inoo sheegtay 3 amal baa maaragtay qofku markuu dhinto raaca waxa kamid ahaa cilmi yuntafacu bihi oo maanta taa kamid ah goobta cilmiga wax lagu akhrisanayo iyo diyaarinteeda haday noqoto buug la keeno iyo haday noqoto maaragtay wixii kala raacaba adduunka aakhiraba jir waa laga helayaa anagu wasaarad ahaan waxaan kaga beeganahay markaad ka tagto waxa weeye inaanu diyaarino waxa la yiraahdo e-library oo ah library-ga technology ku socda oo imika halkii maaragtay hay'ado badan oo bixiyaan way jiraan halkii tusaale ahaan 20 kun oo buug ka qaadan lahaayeen space ama dhul xooga waxaad helaysaa 2 milyan oo buug oo software oo loo diyaariyo serveradoodii iyo wixii kale u bahnaayeen marka wasaarad ahaan taasaan ku contribute gareynaa marka waxaan leenahay hambaliyo golaha deegaanka hawshoodii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada wax badan ka qabatay wasaaradda hawlaha guud iyadana dhulka maaragtay qayb weyn ka ahayd wasaaradda caafimaadka oo bixisay isbitaalka hal midaan ku noqon lahaa qolooyin baa lahaa caafimaadka ka muhiimsan waxbarashada qofku wacigiisa iyo aqoontiisu waa ta keenta xanuunka iyo maaragtay iyo caafimaadka qofku hadduu garanayo waxaan ku dhacay inuu yahay xanuunka noocaasa wuxuu raadsanayaa dhakhtarka ku habboon labada caafimaadka wax laga horreysay waxbarashada caafimaadku waa sax markay wax dhacaan baa qofka la daweeyaa waxbarashadu laakiin intaana xanuun kugu dhicin baad sii ogaanaysa wacigaagana kor loo qaadaya marka waxa weey maanta waa maalin aad iyo aad u qaaliya sidoo kale waa maalintii dhalinyarta cidda ugu badan ee maaragtay ka faa'iideysan doonta waa dhalinyarta haday tahay dhalinyarta maaragtay daayarta iyo haday tahay dhalinyarta cuslaatay labadaba